macluumaad ku saabsan waddanka Faransiiska. Faransiisku waa dal dhaca galbeedka qaaradda Yurub, waxa uu xuduud la wadaagaa 7 dal oo kala ah Belgium, Germany, Luxembourg, Switzerland, Italy, Spain iyo Andorra. Sidoo kale marin xuduudeed dhow oo badda ah waxa uu la wadaagaa waddanka UK. si la mid ah Faransiisku waxa ka mid ah dhulal jasiirada ah oo ku teedsan dacallada dunida, kuwaas oo badankood dhaca Afrika iyo Pacific Asia iyo gobolka French Guiana ee dhaca Latin America. Faransiisku waxa uu masaafo ahaan ku fadhiyaa 640,000 oo kiiloomitir oo wareeg ah, taas oo ka dhigaysa dalka 42 ee ugu weyn dunida, waana kan koobaad ee ugu baaxadda weyn midowga Yurub. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay bishii Oktoobar ee sanadkan waxa uu muujinayaa in tirada dadka Faransiisku gaartay 67 milyan oo qof, waana dalka labaad ee ugu dadka badan midowga Yurub. Faransiisku waxa ay muddo dheer ahaayeen kuwa xarun u ah farshaxanka iyo sayniska, falsafada iyo culumta kale ee aadamuhu raacay. Sidoo kale Faransiisku waa dal ay ku yaalaan 4 ka mid ah goobaha qadiimiga ah ee ugu weyn dunida. sidoo kale waddankani waa kan ay booqdaan dalxiisayaasha ugu badan dunida, in ka badan 83 milyan oo qof ayaa sanad walba soo booqda waddankaas, waana hormuudka dalxiiska dunida. Faransiisku waa dal horumarsan, waana dalka 7aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Dhaqaalihiisu wuxuu gaarayaa 2.9 trilyan marka loo eego hantida guryaha taal. Waa dalka 4aad ay taalo hantida ugu badan dunida. sidoo kale waddankan waa mid aad u heer sareeyo nidaamka waxbarasho, caafimaadka iyo midka nololeed, waana mid ay aad u sareyso heerka horumarka aadanaha. Faransiiska waxa loo tixgeliyaa awood weyn oo ka jirta dunida, saameyn xoogan ku leh arrimaha caalamka. Waxa ayna ka mid yihiin 5 xubnood ee joogtada ah ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. waxa ayna leedahay codka diidmada qayaxan ee veto power-ka. Si rasmi ah waa dal ku hubeysan hubka halista ah ee waxgumaada ee nuclear-ka. sidoo kale waa xubin hogaamineed oo ka mid ah midowga Yurub, waana xubin ka mid ah 7 dal ee nidaamka warshadaha ku horumaray ee G7. si la mid ah waa xubin ka mid ah gaashaanbuurta NATO, waana xubin kale oo ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha ee OECD iyo xubin kale oo ka mid ah ururka ganacsiga adduunka ee WTO. magaalada waddanka ugu weyn waa Paris, ahna caasimadda waddanka, waana xarunta dhaqaalaha, aqoonta, dhaqanka ee dalka. magaalooyinka kale waxaa ka mid ah Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille iyo Nice. sidoo kale afka Faransiisku waa luqad looga hadlo dunida, waana mid ka mid ah 5 luqadood ee ugu waaweyn dunida, waxaana ku hadla in ka badan 37 dawladood iyo dad tiradoodu ku dhowdahay 300 oo milyan. nidaamka waddanku waa jamhuuriyad, awoodda ugu sareysan madaxweynaha ayaa iska leh.